Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan akhyaartaydu baan salaamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay sideen kombiyuutarkan ugu xidhi lahayn USB cableka androfonka iyo kombiyuutarka inta badan waxaa ogaanaysa dadka su-aalahayna weydiiya waxaa kamid ah develop optionna ma aragno ma noo soo baxayo ama debugginka marka see isugu xidhi lahayd kombiyuutarkaaga adoo jeeka saaraysa debugginka haddiise oo u muuqan sida usoo saarnaysaa develop option marka aan bilaawno. Welcome my YouTube channel. si aa usoo saaratay marka hore mobilkaaga ayaa furaysaa kadibna waxaad tegaysaa settingka ayaad tegaysaa kadib markaad settingka tegteed waxa ugu dambeysa ayaad tegaysaa meesha ku qoran tahay about ayaad tegaysaa marka about tagteed waxaa ku qoran meesha ujeedaa printer iyo about tablet about aa kugu qoran aboutka ayaad kilik siinaysaa gudaha ayaad u gelaysaa si markaa gudaha u geshid hoos ayaa u degaysaa meesha ku qoran tahay ee ugu dambeyso building number ayaad waxaa ku siinaysaa 7 jeer 7 jeer ayaad ku siinaysaa waana kuu tirinaa si fiican ula soco 1 2 3 4 5 7 okay waa ujeedaa now hadda wuu kuu shaqeynaa waxaa laga yaabaa intaa boosiina tirada inaad suqalto wax dhib malahan markaa back dhahan gadaal usoo laabto kadibna develop option aa ku dhifto عملنا هل مرة باك سوى هاي setting هل مرة كلها بنا كدبنا هوس كان عيو يالا marka hore nooma yaalin labadan ayaa isku xigtay hadana develop option ayaa noo soo baxay markii aan ku dhufanay 7 jeer kadibna double click ayaa siinaysaa gudaha ayaad gelaysaa si aad u furto meeshaas waxa laga baahan yahay inaad tagtid meesha ku qoran tahay debugging USB debugging ayaa jeeka saaraysaa kadibna waxaan kusoo saaray messagekan oo fariinta in lagu xirayo kombiyuutarka si toos ugu xirmayo markasta aad baahatid iyo wixii barnaamij kombiyuutarka si toos ugu soo shubayo adigoona lagu sheegin wax kusoo bixin digniina okay ayaan leenahay kadib sidaas ayaa debuggingkaaga uu samaysay haddii aad cableka ku xirtid USB-ga iyo kombiyuutarkaba si toosa ayuu kugu soo baxaya marka develop option sidaas ayaa u samayn kartaa debuggingkana sidaas ayaa jeegu saari kartaa insha allah bidna kada ardayda bilaw inay ka faa'iideysan doonaan ayaan rajaynayaa muhiimadda maahan qofka dadka dhan waa wada yaqaanin laakiin intii aqoonin ayaa muhiimadda sababta inta badan markaa kombiyuutarkaaga isticmaalaysa screenkan haddaan isticmaalayno iyo screenada inta ma aha laakiin screenada inta badan aan isticmaalayno oo mobilka kusoo bandhigo iyo waxyaabaha aratid inaad mobilkaaga kaga soo shubatid kombiyuutarka ama mobilkaaga ku shubatid insha allah bidna karim ayuu kuu fududinayaa develop option iyo USB debugging marka insha allah bidna karim video hataa ka hesha fadlan like si subscribe la sameey waana mahadsantihiin dhammaan inta janaalka soo booqatay comment ka bixisay insha allah bidna karim khayr ayaan idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran